السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. daawooyinka loo qaato ama loo isticmaalo dhiig karka ama markuu cadaadiska dhiiga aadka u sareeyo ama waxa loo yaqaano hypertension-ka waa daawooyin noocyo kala duwan u kala baxa ama noocyo kala duwan loo qaybiyo. qaybta ugu horeysa waxaa la isku dhahaa diuretics. daawooyinkan waxaa la siiyaa dadka qaba dhiig karka oo kaliya, waana daawooyin markaasi kaadi badiyo ah oo qofka qaadanaya ku badinaya kaadida. waxaana kamid ah daawooyinkan diureticska daawada loo yaqaano furosemide ama lathax. qaybta labaad waxaa loo yaqaanaa ama waxaa la isku dhahaa ACE inhibitors, waxaana la siiyaa dadka qaba macaanka iyo sonkorta isku qaba. sidoo kale daawooyinkan waxaa la siiyaa dadka kaadidoodu ay soo raacdo borotiinka ayagoo markaasi qaba dhiig karka. qaybta saddexaad waxaa la isku dhahaa calcium channel blocker. daawooyinkan waxaa la siiyaa dadka waaweyn ee dhiig karka qaba iyo waliba sidoo kale markaasi haya xanuunada wadnaha ama markaasi la xanuunsanaya xanuunada ku dhaca wadnaha. qaybta afraad waxaa la isku dhahaa thromboplastia. tusaale ahaan daawooyinkani waxaa kamid ah daawada loo yaqaano beta blockers. noocaana waxay hoos u dhigaan garaaca wadnaha, waxaana la siiyaa dadka markaasi qaba dhiig karka iyo waliba garaaca wadnahoodana uu zaaid markaasi u garaacmayo.